عشركينا maanta wuxuu ku saabsan yahay multiple rules of network xeerarka network ayuu ku saabsan yahay khaasatan server iyo maaragtay ayuu ku saabsan yahay okay cashirkii hore ayuu nala socday cashirkaas oo dheeraaday darteed baan u kala jaray marka yani serverku sidiisa wuxuu bixin karaa a lot of service ayuu bixin karaa wuxuuna yani si isku mid ah u siinayaa serverada maaragtay adeegyadaasi clientska ayuu si isku mid ah u siinayaa okay waxa kaloo maaragtay uu sameynayaa yani computer waliba lagu shubi karaa softwarekaasi uu leeyahay serverka waa sida hadda browserska iyo waxyaabaha aynu ka aragno waa software waxaa kaloo ka mid ah emailada ka mid ah gmailada ka mid ah waxaa kaloo ka mid ah applicationada ka mid ah oo hawada ku jira sida e-commerce-ga platformska lagu dhisay ayaa ah softwareska server softwares ah marka adoo isweyn baad booqanaysaa meel walba ka booqanaysaa okay yani sida halkan aad ka aragto image-ka waxaa kaaga muuqda email server iyo web server iyo file server ayuu qaabilsan yahay waxaa kaloo laga iloobo DHCP server ayuu bixiyaa DHCP waxaa lagu talagalay inuu automatically uu computerada kusoo xirmayo markaasi switch ama shay kale ama maaragtay access point kusoo xirmayo inuu automatically uu siiyo IP address inuu automatically uu siiyo access point-ga ayuu automatically access point waa wireless-ka ayaa waxa uu IP address ka haystaa oo DHCP ah serverka ayuu ka haystaa DHCP server ayuu ka haystaa soo marka automatically ayuu leeyahay yani inta u dhaxaysa number hebel iyo number hebelkaas inta u dhaxayso oo waxaan rabaa IP address inuu qaado marka waynu gaari doonaa hawshaasi يعني wireless control ayaa lagu bartaa koorsadaasaan waynu gaari doonaa marka email server email waa dirnaa marka waxyaabahan oo dhan baa lagu access gareeyaa web browserka markaad booqanayso waxyaabahaas oo dhan baa lagu access gareeyaa waana multiple rule oo shaqooyin badan buu qabanayaa network yani maxaa yiraahdaa si uu yani maxaa yiraahdaa communication u dhaco waxaan u baahanahay qalab ayaan u baahanahay qalabkaas oo la yiraahdo network components ayaynu u baahanahay qalabka networkaas ayaynu u baahanahay marka network wuxuu ku dhisan yahay infrastructure ayuu ku dhisan yahay infrastructurekaas oo ah yani waxa la yiraahdo standard protocols waxa la yiraahdo ayuu ku dhisan yahay standard protocolskaas waynu gaari doonaa laakiin qalabka ayaynu u baahanahay inaan aragno qalabka waxaa loo qaybiyaa marka kuwa la yiraahdo network media iyo kuwa la yiraahdo intermediate devices iyo end devices okay device wadada marka dadkaas oo message fariin takes from laga soo qaadayo waxa laga soo qaadayaa source laga soo qaadayaa to waxa loo qaadayaa destination loo qaadayaa can be a simple way fududaan kartaa a single cable ayadoo maartay hal fiilo kaliya connecting lagu xirayo one computer to another computer kale lagu xirayo computer baa laga soo qaaday computer baa lagu xiray computer kale lagu xirayaa rally hada or as complex as a network that literally spans the globe yani sida hada topology markaas uu dhisan yahay waxyaabahan isku xirxiran oo meesha oo dhan ay wada qabsanayaan isku xirxiran marka as a complex way isku xirxiran yahay tusaale switch badan baa halkan oli kara halkan switch baa yaala halkan kalena switch baa yaala yani waa yani different lanes way different lan A iyo lan B iyo lan C iyo maartay muxuu ahaa way isku xiran yihiin waa gaari doonaa yani maxaa intaas ka fudud oo maartay lacagtaas oo tirada badan switchka lagu soo gadayo hawl yani ka hor istaagaysa okay kan wuxuu ku xiran yahay switchkan wuxuu ku xiran yahay kan kana wuxuu ku xiran yahay kan kana wuxuu ku xiran yahay kan kana wuxuu ku xiran yahay kan marka way isku xiran yihiin redundancy wali kan ma aha xitaa redundancy ma aha kaliya midba midka kale ayuu ku xiran yahay haddii la yiraahdo laakiin redundancy laga dhigayaa halkan waa inay fila ay tagtaa fila halkan ay filana ay maaragtay maxaa la yiraahdaa halkan ay tagtaa midna halkan uu tagaa okay
يعني inuu noqdo mid cross inuu noqdo la isdhaafsanayo okay marka halkan computer baa yaala halkan computerkiya ku yaala muxuu ahaa wuxuu ku xiran yahay maxaa yiraahday switchkaas wuxuu ku xiran yahay switchkaas ayuu ku xiran yahay marka sidoo kale halkan computer kale yaala wuxuu ku xiran yahay hada switch ayuu ku xiran yahay hada xogaa hergab baa jira okay halkan kale computer yaala like that sida hadda uu u dhisan yahay topology-gaas oo kale sida uu samaysan yahay oo kale aad u sameynaysaa sawiradaas iconka waxa waa computer laga wadaa okay way isku xirxiran marka ma suurtagal baa in maartay kan IP address la siiyay kan IP address la siiyay the same subnet ay yihiin fariin isku diraan oo fariintii maxaa la yiraahdaa markuu kan diro ay halkaan ay tagto uu kan forwarding sameeyo kana uu sii gudbiyo ay kan ay imaado ma suurtagalayso spanning tree waxa la yiraahdaa dhacaya hawshaasna waa hawl yani hadda aan fahmi karinin waynu gaari doonaa marka waa kanaalo markaas uu dhaxmari doono oo uu ogolaanayo in maartay numberka markaas dhow uu ka cabir qaato wax kaga diro okay marka yani halkan waxaynu ka aragnaa yani network devices ki ayaynu ka aragnaa halkan waxa kaaga muuqda IP phones kan waxa loo isticmaalaa voice ayaa loo isticmaalaa codadka loo isticmaalaa maartay in lagu hadlo wireless tablet kan isagana maxaa la yiraahdaa yani waxyaabaha waxaan loo isticmaalaa maartay tablets ka telefonada sida tablets ama computer tablets ka iyo waxyaabahaas okay telescope kan waxa loo isticmaalaa iska telepresence-gana isaguna waxa waaye kuwan maartay dhalooyinkan oo waan anaga isticmaalno waxay u baahan yihiin HDMI ama waxay u baahan yihiin VGA gadaal laga geliyo kuwan waxa la yiraahdaa in devices ayaa la yiraahdaa okay intermediary device waa qalabka internetka waa marka kan waa wireless router ama wireless router waaye wireless router kan waa access point-ga oo maartay xaafadaha yaala sida hadda router modem xaafada yaala ay hormuud leedahay oo kale okay multi-layer switch ayaa kamid ah oo loo yaqaano core switch ayaa loo yaqaanaa ama layer 3 switch ayaa loo yaqaanaa waayo isagu labada shaqaba waa qabtaa forwarding iyo wuxuu sameeyaa maartay maxaa yiraahdaa iyo wuxuu sameeyaa routing wuxuu sameynayaa IP address routing uu sameyn karaa oo layer 3 ahaan uu shaqeyn karaa layer 2 ahaan uu shaqeyn karaa okay maxaa la yiraahdaa LAN switch isagana uu jira oo ah inuu gudbiyo frames ayuu gudbiyaa wuxuu wax ku akhriyaa MAC address ayuu wax ku akhriyaa okay midkan waxa la yiraahdaa firewall waxa lagu talagalay inuu isu socodka yani waxa waaye checkpoint waa isu socodka traffic yani daatada ka dhaxdhacaysa between two switches ama routerada iyo waxyaabahaas ka dhaxdhacaysa inuu ogaado oo uu cid soo galaysa iyo cid ka baxaysa routerkan waxa lagu talagalay inuu isku xiro laba network ee kala madax banaan waxa waaye this one wuxuu leeyahay subnet mask oo wuxuu leeyahay ka duwan midkan kale ayuu leeyahay marka labadoodii dhexdooda waxa yaala routerka ayaa yaala kana routerku ku xiran yahay halkaas portigu ka haystaa yani kana wuxuu ku xiran yahay routerka ayuu ku xiran yahay halkan portigu ka haystaa portigan routerka ku xiran ayaa routerkana wuxuu noqon doonaa marka default gateway ayuu noqon doonaa default gateway-gaas ayaa waxa lagu yani access gareyn doonaa ama lagu assign gareyn doonaa labadan switch ee kala madax banaan labadan qalab ee kala madax banaan switch ama waxyaabo kale ha ahaado ee kala madax banaan ayuu ku xiri doonaa marka yani maxaa yiraahdaa default wuxuu noqonayaa marka default router ayuu noqonayaa ama default IP address ayuu siinayaa ama default gateway waxa la yiraahdo ayuu siinayaa network medias ka maxay yihiin marka waa fiilooyinka iyo hababka markaasi ee loo gudbin kara signalka hababka signalka loo gudbin kara waxaa kamid ah wireless layer kamid ah qalabkan oo kala waa wireless layer waaye wuxuu u baahan yahay kaliya daw u baahan yahay iyo internet u baahan yahay inuu helo
internet maaragtay cable oo inuu helo ama fiber optic ama marka sida halkan kaaga muuqata wireless wuxuu u baahan yahay network-ga wuxuu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay si uu network u dhaco waxaa loo baahan yahay network uu si uu u shaqeeyo qalab baa loo baahan yahay halkan waa access maaragtay deviceska waaye kuwan waxaa la yidhahdaa intermediary devices kuwan waxaa la yidhahdaa network media devices network media ayaa la yidhahdaa okay ib phone-kan waa soo sheegay waxaa loo isticmaalaa data voice iyo waxaa loo isticmaalaa iyo data service ayaa loo isticmaalaa labadaba okay wireless tablet-kan isagana waa nooc kombiyuutarada ka mid ah oo ilmaha ay ku ciyaaraan iyo gameska iyo waxyaabahaas okay teles presencingan isagana waxa waaye dhalooyinka xaafadaha yaala ee LG-ga iyo Tecna waxay u baahan yihiin HDMI iyo FGA ayay u baahan yihiin VGA ayay u baahan yihiin okay intermediary deviceska iyaguna waa wireless routers oo lagu talagalay inay maaragtay signalka gudbiyaan signal inay gudbiyaan ayaa lagu talagalay waana maaragtay yani maxaa la yiraahdaa waana maaragtay DHCP ayuu leeyahay isaga dhexdiisa laga controli karo ayuu leeyahay yani managementigana isaga dhexdiisa waad bedeli kartaa passwordku sidoo kalena maaragtay muxuu ahaa yani waanad maaragtay IP addresskaagu isaguna sidoo kale mid fixed ahaa jira waa cidda ku siinaysa network-ga inaad bedeli karin IP addresska laakiin adaa ka dhigi karo DHCP oo yani off iyo on adaa u samayn karayo macnaha maxay tahay markaad daarto kaliya SSID-ga iyo passwordka telefonka aad gashato wuxuu ku siinayaa IP address automatically ayuu kan ku siinayaa laakiin ma ku siinayo haddii aad ka xirto ma ku siin karo hadhow marka ma shaqeynayo marka fariinta aad dirto iyo waxyaaba laakiin wirelessku wuu ku muuqanayaa wuu kacaya wuu shaqeynayaa laakiin ma shaqeynayo wax la yiraahdo maaragtay inaad wax maaragtay broadcast aad dirto wax fariin aad dirto okay kan waxaa la yiraahdaa LAN switch ayaa la yiraahdaa waxaa lagu talagalay inuu network-ga baahiyo ayaa lagu talagalay tusaale routerkan maxaa la yiraahdaa oo yani ama modem router oo very powerful ah yani maxaa la yiraahdaa LAN switch uu ku xiran yahay LAN switch-kan wuxuu u ogolaanayaa kombiyuutarada kale oo 24 boort uu ka kooban yahay wuxuu u ogolaanayaa kombiyuutarada kale inay ku soo xirmaan ayuu u ogolaanaya inta shan god baa ku taala ama 4 god baa ku taala afartan god waxaa lagu talagalay marka in lagu baahiyo network-gan in lagu baahiyo ayaa lagu talagalay waxaa loo baahan yahay marka qalabkan oo LAN switch la yiraahdo ayaa loo baahan yahay LAN switch-ka hal boorti uu kaga xirmayaa boortigaas oo noqon doona maaragtay maxaa la yiraahdaa midkii baahin lahaa network-gan wireless-ka okay wireless la'aan ma ku soo xirmi karaan kombiyuutar loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay fiilooyina loo baahan yahay markaas oo la yiraahdo LAN medias ama Ethernet LAN cables ayaa loo baahan yahay okay isaga dhan maaragtay ayaa ah maaragtay bootcamp dhan ee koorso lagu qaato ee switching technology ayaa la dhahaa waana CCNA-da ayaa lagu bartaa iyo kanba isaga qudhiiso CCNA-da waxaan oo dhan CCNA-da lagu bartaa routing-kana isagana sidoo kale routing technology waxa la yiraahdaa dhan baa jira oo CCNA lagu barto router-ka waxaa lagu talagalay inuu isku xiro laba network ee kala madax banaan ay isku xiraya yani tusaale this one is a switch and this one is a switch computer switches-kan ku xiran oo different subnet mask kala wata marka computeradaas fariin ma isku diri karaan waxaa loo baahan yahay dhexdooda inuu yaalo switch dhexdooda inuu router yaalo routerka waxaa la siinayaa default gateway ayaa la siinayaa wax yar backtracer-kan isla tagaynaa si aan u fahamno inkastoo cashirkanaga aanu ahayn laakiin backtracer-kan aan isla tagaynaa akhbaar buu qaadanayaa waa soo kacayaa
قرال كان علامة هنصار ماشى أو جروب كتستريان وحوا ماشى نقول لي ليان أوكي halkan waxaa soo kacay yani back tracer oo aan qof kasta kula talinayo inuu la soo dago adoon ma awoodi kartid inaad qalabkii soo iibsato haddana yani maxaa yiraahdaa back tracerka ku fududeeyay oo dhowr isagu dheer qaybood buu ka kooban yahay kuwan waa network deviceska wuxuu leeyahay network devices ayuu leeyahay 10 dhan baynu ku sharxi doonaa network device iyo end devices ayuu leeyahay iyo componentska waxyaabaha kale ee dheeraadka ah ee kuwa halkan ku jira lagu la raacin kara iyo connection ama media waxyaabaha aan soo aragnay kuwan kalena waa kuwa caadi ah waxa ugu muhiimsan waa end deviceskaas iyo network deviceskaas iyo mediaskaas ayaa ugu muhiimsan okay sidaan soo sheegay marka waxaan mareynay router ayaynu mareynay router kamid ah routerada halkan yaala ayaanu soo qaadan doonaa 1941 midkan la yiraahdo ayaynu soo qaadanay router kan wuxuu u baahan yahay inaan ku xirno between two switches halkan switch baa yaala halkan kalena switch baa yaala okay afwan router ka kuru leeyahay okay hadda marka maxaan u baahanahay qalabkii aan haysanaa kuwana waxa la yiraahdaa internet maxaa la yiraahdaa devices ama waxa la yiraahdaa network devices waa iyaga okay hadda waxaan u baahanahay mediaski ayaan u baahanahay fiilooyinkii yani boortiyadiisana wuxuu ka kooban yahay switchka waa soo aragnay wuxuu ka kooban yahay 24 boort ayuu ka kooban yahay 24 kaas boorti waxaa lagu talagalay in lagu soo xiro kombiyuutarada iyo wixii la mid ah qalabka kale in lagu soo xiro ama switch kale lagu xiro ayaa lagu talagalay switchku yani isagu IP address ma aqriyo wuxuu aqriyaa isagu layer 2 address wax la yiraahdo ayuu aqriyaa network maxaa la yiraahdaa yani NIC cardka ama network cardka computer waliba ayuu raacsan yahay ayuu aqriyaa oo kaliya MAC address wax la yiraahdo ayuu aqriyaa okay hadda waxaan isticmaalaynaa godkaas la yiraahdo gigabit ethernet port 0/1 ayaan isticmaali doonaa waxaynu ku xireynaa midkan kale ayaynu ku xireynaa 00 ayaan ku xireynaa sidaad ka arkayso gududkan gududka aad arkayso waa yani madaarna ayuu ka wadaa madaarna tusaalahan uu dheeraan karaa isaga kaligiis baa wuxuu noqon karaa 10 dhan buu noqon karaa waana muhiim back tracerka adoon baranin kay ma sameyn karaysid marka 10 dhan ayaynu ka qaadan doonaa hadda laakiin topology-ga oo kaliya ayaan ku sawirayaa qaabkaas ayuu iskugu xirmayaa anigu kaliya hadda topology aan ku sawirayaa wax shaqo ah ee la qabanayo hadda ma galayo waad ku wareeraysaa okay sidaas uu isugu xiran yahay marka yani halkan linki kale ayaa ka xiran sheekadu way dheeraanaysaa macnaha waxay noqonaysaa sida ma aragtay yani muxuu ahaa ileen labadan switch inay wada hadlaan la rabo mugta in linkiya la siiyo waa labadooda fahantay router kana kan iyo kan u dhaxeeya waa inuu intana linki ka qaato intana uu ka qaato linki ma fahantay computeraduna sidoo kale linki ay haystaan kan marka hadduu rabo inuu kan la hadlo wuxuu u baahan yahay yani nidaam dhan inuu u maro hab protocol standard protocols ayuu u baahan yahay inuu u maro kuwaasoo lagu configure gareynayo maaragtay configuration baa dhacaya aad u dheer yani switchkan iyo routerka qudhiisa okay si aan ku yara fahamsiiyo waa inaan configuration ku sameeyo waxaanu galaynaa markii hore routerkaas ayaynu tagi doonaa si aan maxaa la yiraahdaa default gateway aan ugu sameyno maaragtay IP address default gateway inaan u sameyno CLI aan tagaynaa waxyaabahan oo dhan waad baran doontaa hadda haddii lama sharxi karo physical iyo configuration iyo CLI waxa lagula jeedo CLI ga tagaysaa
okay waa no shutdown marka waxay u baahan yihiin labadan computer waxay u baahan yihiin in la siiyo maaragtay muxuu ahaa different IP address in la siiyo ayay u baahan yihiin marka default gateway-ga waxaa noo ah routerkaas ayaa noo ah okay kan waa iga dansan yahay kan wuu iga dansan yahay reasonka uu u dansan yahay ma garanaysaa wuxuu u dansan yahay waxaa waaye portigan anigu yani uma assign garaynin maxaa la yidhahdaye yani no shutdown ma aan dhihin okay portigaasaan aan kicinayaa inta IP address ka ma siinin isagu 0/0 IP address 192.168.1.255.255.255.0 on ka tagay .0 okay overlap buu sameeyay leeyahay okay waa ka bedelayaa kan waxaan siinayaa 2 ayaan siinayaa si aanay isku mid noqon micnuhu different waxaa la rabaa subnets ayaa midkaas waxaan siiyay .1 midkan waxaan siiyay .2 192.168.2.1 okay no shutdown aan leeyahay hadda wuu kiciyay boortigii wuu kiciyay waxaan tagaynaa marka computeradaan tagaynaa computerkan waxaan siinayaa 192.168.2.2 ayaan siinayaa waxaad tagaysaa halkaas desktop ay ku qoran tahay IP configuration 192.168.2.2 ayaan siiyey okay default gateway-giisa wuxuu noqonayaa 192.168.2.1 ayuu default gateway-giisa noqday kan kalena tagayaa isagana 192.1.1 oo ahaa kan waxaan siinayaa 192.1.2 192.168.1.2 aan siiyey default gateway-giisana waxa waaye 192.168.1.1 marka hadda si aan u hubino inuu shaqeynayo waa inaan bin gareeyo waxaan bin gareynayaa midkan 192.168.1.2 wuu shaqeynayaa laakiin waxaan ka rabaa ma u diri karaa midkan fariin ma u diri karaa 192.168 okay 192.168.2.1 wuu diri karaa labadoodu marka waa ka shaqaysiiyey hadda imika fariimaan isku direynaa midkan ayaan fariin u dirayaa fariintii si successful ayay u gaartay midkan kale isagoo simulation ah ayaan ku tusinayaa waa balay gareynayaa fariintii halkan baa laga diray halkan bay gaadhay switchkii marka maxaa la yiraahdaa routerka wuxuu u dhaxeeyaa wuxuu u kala aqrinayaa marka maxaa la yiraahdaa wuxuu isku xirayaa labadan network ee kala madax banaan ayuu isku xirayaa midkan wuxuu wataa .2 midkan wuxuu wataa .1 intoodana boortiyadana lagu maaragtay abuuray waxaad arkaysaa halkan fariintii intiga la saaray micnuhu waxa waaye waa la diray real time gain marka haddaad u baahan tahay inaad switchka aad soo iibsato aad iibsatana haddii aad u baahan tahay maxaa la yiraahdaa Cisco switches for sale ku qor dabeetana raadi ama Alibaba ama meelaha kale ka soo iibso isagoo celis waa la helayaa switchka qaabka u yaalan ku tusayaa login waa browserkan too much login uu sameynaya waayo waxyaabo badan baa ku jira bookmarkigiisa iyo weli lama dileedin ba isagoo dhan cache-kiisa lama dileedin
xaaladda internetka Soomaaliya sidaan ayaa xawaarihiisa aad buu u liitaa. halkan sidaad ka arkayso waa switchka switchada soo baxay qiimahoodii iyo waa qaali lagama bixi karo 900 uu leeyahay very expensive waaye. kan 1200 uu leeyahay waa set dhan isla socdo waaye, waa set dhan isla socdo. waxaan tagayaa eBay aan dhaxgalaynaa eBay aan tagaynaa. halkaas switchyo maaragtay raqiis laga helayaa. inaan isla aragnaa rabnaa macnaha yani mooy inaan iibsanayna maaha, waa isla arkaynaa yani qalabka sidii u yaala inaad aragto. si ka fududna halkaan aad ka arki kartaaba wixii hadda aan soo dhisaynay. sidaad arkayso switchka oo dhan lagu sheegayo waa kaas. wax yar aan soo yara dhaweeyo. sidaad ka arkayso waa kaas switchka waa kana. wuxuu leeyahay 24taas god ayuu leeyahay. waxa halkaas ku jira waa isaga. routerkan waa kaasa 24taas god buu leeyahay. godna waxa waaye labadan god ee banaanka yaala waxa la yiraahdaa gigabit ports ayaa la dhahaa. waxa lagu talagalay iyagu in switchyo kale la isku xiro ayaa lagu talagalay. gigabit portiga wuxuu isku xiraa switchyo kale ayuu isku xiraa iyo routerada ayuu isku xiraa. the same switch maaragtay portyadan kale laba switch way isku xiri karaan iyagu qudhoodu, laakiin portyadan kale maaragtay maxaa la yiraahdaa fast ethernet ports ayaa la dhahaa. iyagu laguma xiri karo wax router ah, waayo routerka wuxuu wataa waa gigabit ports ayuu wataa. sida halkaas aad ka arkaysay 2 gigabit ports ayuu watay. routerkan fiirinayna marka isagana routerka siduu u yaalaa. routerka isagana sidaan buu u yaalaa. physicalkiisa aan aragno. routerka isagana sidaan u yaalaa. halkaas waa powerkii, halkan waa switch on or off kii, power plugging waaye. kuwan waa maaragtay maxaa la yiraahdaa waa layerskii. yani meeshan wax baad gelin kartaa, waa meelo banaan oo aad dheeraad ah ee aad gelin karto portiyo kale iyo waxyaabo kale aad gelin karto. okay, marka wuxuu leeyahay sidaad halkaas ka arkayso yani portigas buu leeyahay. portigan iyo portigan buu leeyahay oo ah kuwa aan ku install gareynaynay imika. maxaa la yiraahdaa yani maxaa la yiraahdaa aan ku install gareynaynay switchka. fiilooyinkan waa kuwaasa sidaad ka arkayso waa fiilooyin meesha ku jira. okay, ma soo kacay kanaan fiirinaynaa. okay, Cisco switches brandiyadu way kala duwan yihiin. hadba brandiga ka hesho Hawaii baa jira. hadba brandiga markaas aad ka hesho ayaad iibsanaysaa. marka halkan waxaad ka aragtaa switchka ka aragtaa inuu $288 u yahay isagoo cusub seeb ah. marka aad rabtid inaad isagoo cusub iibsatid waa kana waa $288. macnaha isagoo la soo isticmaalayna waa fiirinaynaa usage isagoo la soo isticmaalay mid la soo isticmaalay. waa hataa Soomaaliya loo soo shipping gareynaya oo leeyahay way iibsanaysaa. Soomaaliya lagu soo shipping gareynaya 524 qof baa iibsan. laakiin baa jira computerkayga raali noqda. browserkan waa iska daynaya isaga qudhiisa. waa browserkan aan tagayaa. laakiin kan waxa waaye browserka ugu caan eBay. okay, Cisco numberka waa 2960 okay, waa sidaan arkayna waa kana isagoo cilis ahna waa kana. haddaad u baahan tahay waa $70 waaye. shipping to Soomaaliya uu leeyahay. Soomaaliya loo soo shipping gareynaya.
isagoo haddana waa kana mid kale celis inuu yahay in kale ma sheegi karo $189 waa leeyahay kan laakiin inuu brandi cusub yahay waa la dareemayaa waa ujeedaa kan laakiin waa $19 waa mid celis ah shipping to Soomaaliya leeyahay Soomaaliya loo soo shipping gareenayaa iyo waad iibsan kartaa hadii Ingiriiska lagu joogo marka wadamada ay ku xiran tahay Mareykan ama Ingiriis meelo kale hadii markaas dad ay ku joogaan waad iibsan kartaa waa lagu soo shipping gareen karaa hataa adoon maartay DHL baa lagu waxaan karaa adoo dad la xiriirinba kaliya lacagta unba yani xayreysa tarkaarka ku iibsan kartaa tan waa iska muhiim inaad maartay iibsatid هذا أول كريم مارتي simulation toolkaas back tracerka aad isticmaalaysaa marka hadda kan saad ka arkayso waa sidan mountain areas yahay ear mountain ku leeyahay ear mountain kaas muhiim waay markii oo raaq lagu xirayo kale yaa la isticmaalayaa catalyzed 2960 waaye modelkiisa sidoo kale waa kana ka arkayso $1 kaliya marka hadii aad iibsanayso aad iibsan karaysaa aad awoodid lacagtiisa okay kale brandiga isagana waa kana brand cusub yahay waxaan leeyahay uu cusub yahay hadda halkan ka muuqata uu cusub yahay kan ogaa waa soo isticmaalay maadaama xariijimo ay ka muuqato waa soo isticmaalay laakiin waa cusub waaye mid cusub waaye iladaas waxaa la yiraahdaa council la yiraahdaa configuration waxyaabahaas lagu sameeyaa iladiisa powerka wataa ear mountain iska wataa waxyaabahan oo dhan waa switches waaye waxyaabahaas oo dhan ku qoran marka ashirkeena ku laabanayna switchka waa kaas la yiraahdaa routerka isaguna isagana soo aragna bal router isaguna aan soo aragno routerku waa kana halkaan ugu jira router isagana halkaan ugu jira routerkaas aan raadinayna routerada iyaga qiimahooda waa imisa marka waa fiirinayna $136 uu leeyahay mid ceys ah kala soo isticmaali kaliya fiirinayna routerka isaguna si uu yaala aan aragno midkan waa kana $79 waaye midna waa $88 waaye midna waa $47 buu leeyahay midkan aan fiirin $27 arkayso waa kana routerka sidaan u yaalaan waa iibsan kartaa haddii aad awoodeysid waa kana gadaashiisa waa tana kaas waxaa ka galaya power cable-kii waqtiyada kalena waa kaas isaga iyo halkan ka muuqda back tracerka waxba isma dhaamaan isku mid waxba isma dhaamaan labadooda sidoo kale waxaa kaloo jira network device kamid ah multilayer switchkana kamid ah oo aad iyo aad very powerful ah switch yani u dhaqmaya labada qayb router ahaan wuu shaqeyn karaa switch ahaan wuu shaqeyn karaa layer 3 function ayuu sameyn karaa layer 2 iyo layer 3 function labadaba waa sameyn karaa isaga marka aan aragno magaciisa isaga marka aan aragno leeyahay number buu leeyahay 3560 يعني shape أنا أرجعنا shape كيس Cisco
اوكي سوى كنا يحدن ياخذ دور وقتها يعني عيس رقيس وكدوين هي مارتي سكيتشكا هذا دايت سو اركيني وكدوين هوايا كان وين انا قبل عوين marka 5 كان saaraya لحظة ياخذ دور هذا دون توادي بسنك واكاسا اوكي فاير وول كيسوي حلقة قال إنه هوبيو جاكن وكسميه ترافيجا يعني هاي حياة راوتر هذا سويتشسكا عدة صوت جلسي عدة كبحيس إنه هوبيو قال يا الغوت الجري وايرلس يدا حكوا جرى ندوة ميدياسكا حاجة وايرلس يا شرا حكوا لان ميديا أو الغوت الجري حانو دن سيجار بعدين قادنيسا وان ميديا يا شرا مركا devices aaladaha media fiilooyinka waa visible wax muuqda iyagu hardware-da kala muuqda kuwaasoo maaragtay waxaa kamid ah laptopska kamid ah PC-yada kamid ah switch-yada hadaan arkaynay router-da kamid ah wireless access point-ga kamid ah iyo fiilooyinka ayaa kamid ah wireless-ka wuxuu loo isticmaalaa isagu wuxuu isticmaalaa RF waxa la yiraahdo ama radio frequency ayuu isticmaalaa ama wuxuu isticmaalaa infrared waves ayuu isticmaalaa si uu u diro signal ashirkeena maanta halkan ayuu ku eegyahay maalinta xigta aynu kaga kulmi doonaa 10 cusub waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo